waxaan u mahadcelinayaa mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo runtii dalka u soo shaqeeyay in ka badan muddo 50 sano ah xilal kala duwan oo soo qabtay. mudane jawaari waa oday Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aad u farabadan geliyay. go'aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruudo ku xiran ma laha. waxaan ku dhiirigelinayaa mudane jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyay dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaan qabiiltirka dastuurka. waxaan ka filaynaa inuu sii wado tala bixintiisii iyo tala soo jeedintiisii Abdullaahi Raahim. waxaa waajib nagu wada ah inaan u soo wada jeesano xaqiijinta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed oo ah dowlad wanaag, adeegyada aasaasiga ah inaan gaarsiino, inaan si wadajir ah ugu istaagno arrimaha masiiriga ah. xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto maadaama ay hor yaallaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. waxaan kaloo aan halkan aan ku yiraahdaan aan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay garab istaagaan dowladda, ayna la shaqeeyaan hay-adaha amniga ah si loo xaqiijiyo nabadgelyada dalka. dowlad aysan shacabku garab taagnayn ma shaqayn karto. waxaana idinku boorinayaa shacabka guud ahaan inay kaalintooda qaataan hadduu Ilaahay yiraahdo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.